si loo xaliyo shaqaaqo shalay ka dhacday taliska militariga ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana maanta deegaanka gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maamulka magaalada Marka Cusmaan Muuse Maxamed iyo taliyaha guutada 14 Oktoobar Gaashaanle Dhexe Nuur Maxamed Gaabow taliyaha guutada 14 Oktoobar iyo gudoomiyaha magaalada Marka ayaa deegaanka u tagay xalinta shaqaaqo shalay ka dhacday taliska militarigu ay degan yihiin ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar 50 waxaana kulan lagu xalinayay shaqaaqadii dhacday la qaateen odayaasha dhaqanka maamulka deegaanka iyo saraakiisha laamaha amniga deegaanka lambar 50 ugu dambeyn odayaasha iyo saraakiisha u timid ayaa isla qaatay xalka iyo in laga wada shaqeeyo nabadoon u hadlay odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa sheegay in la xaliyay shaqaaqadii shalay ka dhacday taliska militariga ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar 50 maanta kulankan waxa isku saabsan yahay shalay khilaaf yar ayaa ka dhacay xirida oo garoonka aninkii oo odayaashii deegaanka aho iyo wiilkan soo salaamay bini aadan waxa ka dhac kara qaladkii dhacay maanta gadoomiya degmada Marka Cusmaan Muuse aanoo yimiday tali guutaha aanoo yimiday maanta waxa dhacday meeshii arintii in xal laga gaaro bini aadan waxa la yiraahdaa qalbiis mishelay kalaamullaahi ilayhi kalaamkiis misgafay bal alla ma joogto laakiin hadda qalbi aadmida shal isgafay maanta gadoomiya xaliyay tali guutahan xaliyay odayaashan waa qaadanay raal nusbanahay cadawayn hal waaye oo meeshaas jooga ognahay national joogna ognahay odayaasha oo shalay qaladkii laga galay maanta gadoomiyaha iyo tali guutaha raal gelinka bixiyeen walaalkan anaka waa iscafinay saasay ku dhamaatay ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka magaalada Marka Cusmaan Muuse Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka lambar 50 isla markaana xal rasmi ah laga gaaray shaqaaqadii shalay dhacday isfahmaakin maanta waa soo xalinay aniga iyo taliyaha guutada 14 Oktoobar Nuur Axmed Gaashaanle Dhexe Nuur Axmed Gaabow waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa cadeynaya in wixii meesha ka dhacay isfahmo ay ahaayeen haddana isfahmo lagu soo waxaan leeyahay xal waara laga gaaray odayaashii oo shalay hadlay oo dhibaato loo geystay oo isfahmo dartiisa dhibaato u dhacday haddana waxaan leenahay meeshii xal laga gaaray markuu wadi mar labaad waxaan leeyahay dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hal waaye wadankana sharciga ka jiro qof waxad ku karo Ilaahay abuurta ma jiro waxaarna in cadawgeena hal waaye hal meel aan wada socnaa waxaan leenahay dawladda laga shaqeeyo wax walba waxa ka horeeya sharciga qof sharciga talaabsan kara ma jiro waxaarna in wadanka nabad u ahaado dadka deegaanka nabad ay ahaadaan maadaama odayaashii iga aqbaleen in maxaan leeyahay halgelin aan ka bixiyo waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantihiin wadankan qofku soo duulo ka Ilaahay abuurta ma jirto xoogga dalka qofku kuma duulo xoogga dalka wadanku xoogga dalka yahay targetkiisina waxa waaye argagixisada al-shabaab ma ahan dad deegaan ma ahan dad culaadin uma socdaan waxaan leeyahay dadka deegaanka raal ahaada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay har habeen u taagan yihiin difaaca dadka